رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyaalaha buriya soonka wixii uu ilaahay iga fahamsiiyey subxaanahu wa tacaala. qodobka koowaad, in qofku uu wax cabo ama wax cuno si kas ah, laakiin haddii uu hilmaan ku sameeyo soonkiisu waa uu wadan karaa oo ma burayo. abu hurayra allah ka raali noqday wuxuu rasuulka alle subxaanahu wa tacaala ka wariyey inuu yidhi, qofkii isagoo sooman hilmaama oo wax cuna ama caba soonkiisii ha dhammaystiro, oo soonkii waa u jiraa, ilaahay ayuu baaquudiyey oo waraabiyey. qodobka labaad, mataga hadduu iska keeno qofku waa uu ka jabayaa soonkiisu, laakiin haddii uu soo dhaafo ama iskii uga yimaado waa uu wadanayaa soonkiisa. abu hurayra allaha ka raali noqday wuxuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam ka wariyey inuu yidhi, qofkuu matag soo dhaafo oo iskii uga yimaado soonkiisii waa uu jiraa oo ma qalayn doono. qofkiise mataga iska keena soonkiisii waa buray ee ha qaleeyo, ha soo celiyo. waxaa kaloo ka mid ah in lala yimaado qowl ama fal gaalnimo ah. ada baynu ka mangalaynaa tabaaraka wa tacaala. qofkii islaamka ka baxa waxaa buriya oo baaba'aya dhammaan camaladiisii uu horay u sameeyey iyo camalka uu markaas ku dhex jiro. waxaana u daliil ah qowlka ilaahay tabaaraka wa tacaala, ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. waxaa dhab ahaan loogu waxyooday adiga iyo kuwii ka horreeyeyba nebiyow, haddaad wax la wadaajisa eebbe waxaa buri camalkaaga, waxaadna ka mid noqon kuwa khasaaray. suurat az-zumar aayadda 65. jamaaca oo ah haweenayda iyo odaygeedu markii ay wada xaajoodaan, hadday arrintaasu dhacdo maalinimada soonku waa burayaa soonkiisu. yacnii ayadoo la sooman yahay ama ayagoo wada sooman, hadday arrinkaas ay sameeyaan soonkoodu waa uu burayaa. waxaana laga rabaa in uu kafaaro gud la yimaado oo ah inuu xoreeyo addoon muslim ah. hadduusan awoodinna inuu soomo 2 bilood oo xidhiidh ah. hadduusan awoodinna inuu cuno siiyo ama uu quudiyo 60 miskiin. sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaalaha jabiya soonka xaydka oo ah dhiigga haweenka ku dhaca ama haweenayda ku dhaca ama kan dhalniinka ah. waxaa ka mid ah sidoo kale biyaha ragga ka yimaada sababoo la xidhiira ficil uu sameeyey sida gacanta oo la isticmaalo ama dhunkasho iyo wixii la mid ah. laakiin biyaha isaga oo hurda ka yimaada wax dhib ah u geysan maayaan, soonkiisuna waa uu sii wadan karaa. waxaa kaloo ka mid ah cirbadaha nafaqo sideenka ah sida faleebo iyo wixii la mid ah. qofka sooman haddii uu si bareer ah u isticmaalo cirbadaha nafaqada ee xididka laga qaato, cirbadahaas oo buuxin kara kaalintii cunidda ama cabidda oo qofka ka bi'iya baahida ama oonka, soonkiisu waa burayaa. qaybaha kale ee cirbadaha daawada oo aan lahayn nafaqo baahida baabi'isa soonka ma jabiyaan.
qofka sooman haddii uu qalbiga ka niyeysto in uu soonka furo soonkiisu waa burayaa, waayo niyaddu waa saldhigga camalka qofka muslimka ah, waana miisaanka camalka lagu qiyaaso. waxaa laga wariyey amiirkii mu'miniinta cumar bin alkhataab radiallahu canh inuu yidhi, waxaan maqlay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo leh, camalka waxaa saldhig u ah niyadda, qof kastaana wuxuu helaa niyaddiisa. sheekh miihi, balse waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago wixii alla iga fahamsiiyey tabaaraka wa tacaala, oo kama qaala calayhi asalaatu wassalaam, balliquu cannii walow aaya. رمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان أقبل فالقلوب مريضة، والنور أمسى خافتا بكياني. قل لي متى يأتي الصباح بنوره، ومتى ننصاع للإحسان.